maantana waxaa igu haysta xoghayaha dawladda hoose iyo Sheekh Dir wadaad buu sheeganayaa kitaabkii Ilaahay baan daliilinayaa buu yiri dulmiga waxaan anigu leeyahay hooyada dulman baanahay ummad aniga oo Waris Ismaaciil Ducaale Xasan waxaan ka cabanayaa dalka hooyo mawaadilaanahay dad iyo dunyaba inta aan dhex fadhiyaa meesha waxaan 35 sanadood dawladii dhalata oo kasta way igu dhalatay maantana waxaa igu haysta xoghayaha dawladda hoose iyo Sheekh Dir oo ubaxa iga soo horjeeda wuxuu igu yiri sheekha weyn ee diinta islaamka hogaaminaya ee dalka laga dhigaysto quraankiisa iyo xadiiskiisu markaan idhi maxaad i weydiinaysaa oo ii sheeganaysaa halkaa waadna iigu timi waadna ila jaartay wuxuu igu yidhi samcad xumo ayaad ku haysaa dugsiga kaa sarreey ma dhisnayn dugsigaasu markaan tegi ina gelan ahay buu ah waqaf buu ula baxay dad baan ka maqlay taariikh badan oo deerkaas cidlo ahaa oo biibsiga iyo idaacadda ummadda nebi maxamed soo joogtay baan saamaleelkana 3 reer baa yilay oo anigu aan magacyadooda iyo inaayadooda iyo meelay ka joogjeedaan garanay 3 qoys baa yilay halkaa oo cidla abaani ilaahay hortii baan u degay maantana wixiisi baa ku filan waayo halkaasuu igu haysta intaasuu igu haysta oo igu dulmiyaya oo dawladdiisa waaxdu markay diiday ee soo martay irari weyday wuxuu igu tegay dawladda dhexe xoghayaha hargeysuu ii dartay dulmiga waxaan anigu leeyahay hooyada dulman baanahay ummadda nebi maxamed ee islaamka hadday madaxweyne tahay hadday shicib tahay hadday wadaad tahay hadday tahay ninka maayirka magaalada maxamed mooge waxaan leeyahay haddii islaan jiro oo la ashahaadanayo hoosa la ii eego waan buka oo ma kici karo oo ilaahay sidii igu ogyahay tabcaan baan hadalka ma celin karo oo sida ma socon karo oo ma adeegan karo ninkaa wixii islaama ee ashahaadanaya ee dal jooga ee dibad jooga ee ummadda nebi maxamed hayga qabtay oo ilaahay baan ka hoos galay cirkaa bilaatiirka iyo dhulkaa bilaatulmaabaan meelaan kaga noolaado ka waay ninkaa hallayga qabto ilaahay maxkamadiisaan u taaganahay hallayga qabto Soomaaligu wuxuu igu yidhi indhahay u daran tahay sandaqada indhahay u daran tahay buu maxaa indhaha ugu daran miyuu ku jiraa ma waxbuu kaga dareeraya ilmaha yaree 2 jirkii ima agtaagin ilaahay bay agtaagan inaan malihi nin dhagala oo kii dhalashay igu xigaya oo halkaa ila quuta ayaa dad bini'aadane ii soo galo iga jooga iyo ummadda nebi maxamed markaan halkaa fadhiisto ii iibisa iskriinka iyo barafka deema irsiqii kala dhamado iskriinka iyo barafku igu haysta muxuu iga raba wadaad buu sheeganayaa kitaabkii Ilaahay baan daliilinayaa buu yiri dad iyo xoolaba waa buuxa haddaan xumahay habluu dhalay oo oryuu qaba oo hooyaa dhashay oo qaar baa la dhashay haweenkiisa oo kalaanahay hadduu wax nigu hayo ha u soo bandhigo maxkamadda islaamka iyo muslimka ha u soo dhigo